جماهير الصومالية وان السلامية الكست او دونيدا جوجتان با صومالي وين انت مقع الصومالية ديقو waxaan idinka codsanayaa inaynu taageerno moral ahaan moral support iyo financial support iyo wax kasto ku caawin kareynaba ummadda Soomaaliyeed ee halgamaysa ee ka halgamaysa laascaanood ee qarannimadii Soomaaliyeed iyo midnimadii Soomaaliyeed u halgamaya ee iskood isku xilqaamay inaan inaguna garab istaagno ayaan ka codsanayaa Soomaali meel kasto oo dawladda joogtaanba عجلتنا ما توعي كسعطا تلسكي ساقدي ادقرانيسان تلسكي جبوتي ساقدي غيركي كهاري شان يا فرطن صندوط ساقد كاها ايان رواينا هلكن عجلتنا وقبطو انفرين وقدرو إذن كروحا نتكو عصانا يا قف كستو عجلة دي داركا إنا دي شار غريسان سايو قادو ماشا وسعط تضبيا لباتك جون ومركي جبوتي حرودة شان يا فرطن سنة هرتيد ومركي حرودة عالن كقاتين حريته waxay sheegtaa inaad adigu xor tahay oo qofka bini'aadamka xor yahay oo hadalkiisa iyo fikirkiisa uu xor yahay ayay sheegtaa xorriyadu waxay sheegtaa in dal aad leedahay oo xaq ku leedahay dalka inaad wax barasho ka hesho inaad caafimaad ka hesho inaad ka hesho nabadgelyo inaad ka hesho iyo inaad shaqo ka hesho infrastructure wixii dadku u baahan yahay oo dhan inaad ka hesho inaad biyo ka hesho inaad electric ka hesho intaas way caalamku waxa uu sheegay wax kala ma dad caalamku dadka lacag uma qaybiyo dadku iyaga shaqeystay xorriyad bay u baahan yihiin inta midna kama jirto Djibouti aba yaraatay inta aan sheegay xabad qurihi kama jirto Djibouti caalanka Djibouti ma oran karayno waa caalan ummadda wada leedahay ma noqon karo maaha kuma tilmaami karayno wuxuu yahay caalan reer leeyahay caalanku wuxuu noqon karaa caalan dadku wada leeyahay marka inta aan sheegay oo dhan aad ka hesho baad noqonaya calan qaran ku leeyahay laakiin haddii inta midna aanad ku helin oo xataa xorriyatul qowlki aanad ku helin oo haddaad hadasho lagu xidhayo waxa weeyaan waa maro kama duwana reer baa iskale waa maro reer iska leeyahay waa maro ay ku shaqaystaan reer buu noqonaya ayuu noqonaya Djibouti saad ogtihiin waa meel kulul oo aad u kulul cimiladeedu sanad imikada aynu joogno dadka dibadda ayaa lacag ururinaya dadkii si biyo loogu shubo xaafada dhan baa bilaabiya dhaqaalaha soo galaana waa trillions of dollar Djibouti dadka ku nool qaar dhereg bay u dhintaan iyo daaca qurun qaar caloosha loo xidho oo ring baa ku xidhan si aynu u soo fardaacin habeenkii qaarna gaajo u dhimanaya skeleton weeyaan gaajo ayay u dhimanayaan qaarna cadaalad darre u dhimanayaanoo waxay ku xidhan yihiin waxay aaminsan yihiin iyo fikirkooda ayay u xidhan yihiin oo jeel ugu jiraan Djibouti waa taas Djibouti dal hore u maray ma waa 79kii 78kii sidoo ahaa un weey airportka Djibouti haddaad ka dhaadhacdo markii xornimada la qaadanayay diyaarad baad fadhiisan jirtay la yiraahdo diyaaradan orodka badan leh ee dheereyn jirtay ayaa fadhiisan jirtay laakiin maanta jingad baa ku xidhan wadamada jaarka ninkii tagay baa arkay dalka Ethiopia tunnel baad galaysaa oo soo xidhanayaan diyaarado Eritrea ayaa ka sii horeysa waliba dhulka socda leer baa ku gaargareynaya meeshaad ka baxayso Eritrea tunnel bay ku xidhanaysaa diyaaradu qof kasto tagay oo arkay dhulka socda horumarku waa ka wadamada horumar waa ka halkan Djiboutina halkii ugu hooseysay joogtaan wada aragtan gidaafada iyo qashinka dhex yaala iyo qoorka iyo bulaacada meesha dhex taala wada aragteen sanitarial baa lagu noolaan karay dadkuna waa laba category sare iyo mid hoos ma oran karnaa marka Djibouti caalanka Djibouti xaq buu leeyahay in loo dalbaadego laba siyaad waan oran karaynaa xaq luma laha in loo dalbaadego waan oran karaynaa waan oran karnaa wuxuu waa calan laakiin maamulkii baa qarribane in loo dalbaadego waa iska xaq waxa halkan yimiday oo arkaya oo la sheegaya nin la yiraahdo Cawaale waa fanaan reer Djibouti anigu waxaan ka yimid imika 5 cishaan jooga dalka Ethiopia ka yimid oo dhulka Ciisaha dagaalka ay ku jireen ma soo maray waxa la sheegay in Cawaale la weydiistay in concert uu sameeyo dadka Ciisaha meesha ku dhibaataysan uuna diiday gabar baa la socotay iyadu gabadhaas dadkoodii concert baa u sameysay waana u tagtay waa afar halkan yimid waxa leeyahay ka heesaya Cawaalow halkan maxaad ka soo doontay dadka aad u timid inaad u heesto doonayso waa Ciise waa kuwii adiiday salka diiday
حق مالي إن النوتي ما دو أم بعد نوهست حق مالي إن البال يسد توت سو بلاك بويد ولا هذا بالا لقد ضبع صيا نوجوهست حق مالي إن النوتي ما دمه إن تمادو وقلط إن كل جيسنا وقلط وايو قيب نجمد متي قيب أنا نجمد متي إن أنت كل صعوطة يا أدو اسكو شرف متهيدنا إن أنت سدت كودي بوصه هستي أو دجال لقى شيء أدو واحد يددت كيني إن كونسرت السمايس أو ديدي محد مركب قصو نقول سواء عفر كان هالكم هو كانية عفر كان دت كيبو كلا قيبية سنة كيور حفلات بنقول جيابو ردل كان لا حفلات دي لبيه طبعا كي بركيبو كان فنانين توضي ضد كويس حدان تضبط النبوي مادين لبيه طبعا كان روح يضو ماشي واحد لها ساني جري وعفر كالكن شوف عفر كان واحد ولا لينك قدوميها بارلمانك نكي عفر كهاي اسلانتا حمارة الحد بلوها قبسناي اوفر سناي انو اسجودا وناد صدح جربو كبحص سو لوها او قردن قدو markii la magacaabay dadka qabta shicibka soo qabtay marka Djibouti waa taas weey waa dal la qabsaday xamaarat alxadda buu u sujuuday qof bili aadan u sujuuday isaguna halkan dadku kala qaybiya afartii ka dagaalameysay kilalka meesha ciisa ka dagaalameysay ayaa halkan joogta oo safaaradda joogto isku soo sawiray marka waa ninkaas weeyaan ninka halkan joogaana Djibouti waxa la wuxuu sheegay dadka reer Soomaali ciise gaar ahaan annaga waxba nooma sheegi karo wax alla wuxuu noo sheegi karaa ma jirto laakiin qarankii baa dhintay qaranka Djibouti baa dhintay oo la haystaa waa meesha la yiraahdo Laascaanood dadkii baa iska xoreeyay laakiin Djibouti reerkan Laascaanood raba inay qabsadaan ayaa haysta hubkii bay saa ugu soo daldanayaan wararka ugu dambeeyay waxay tahay in toddobaadada in la weeraro rabo oo hub cusub la keenay Hargeysa iyo Gooja Cadde iyo meesha kale la yiraahdo meelaha agaarka ay keeneen hub ciidamadii Djibouti ay joogaan hogaamiyaashii Djibouti ay joogaan sirdoonka Djibouti ay joogaan oo la dagaalgalayaan jabhadda Hargeysa joogta iyagaana Djibouti ay jabhaddan inaad ogtihiin kala mooyaan dal la qabsaday weeyaan dal madaxoodii la qabsaday Ismaaciil Umar Gelle waa nin dhintay waa ninkii la oran jiray Xabiib Burqiba ee 5 sano isagoo sii mootan islaantu dalka xukumaysa waa ninka hurdada aragteen nin mootan weeyaan waa meyd habar baa meesha haysata dadkeedii bay ku wareejisay dalka oo dhan dalka waa la qabsaday waa ixtilaal way hadad maqli jirteen waxa la ixtilaalay wareerka ciise la yiraahdo waa ixtilaal waxay ku jiraan adoonsi gumaysi bay ku jiraan occupation reer baa occupy garay wareerka Hargeysa ku duulay ku duulay Laascaano hubkoodii marayo Soomaaliya waxa saaran embargo waxa la yiraahdo army embargo Krashnikov lama keeni karo Soomaaliya Krashnikov lama keeni karo waa la rajista gareeyaa baabuurta ay wataan Somaliland amba maamul beeladku iyaga cusub aad arkaysa qoriyihii waa weeraayo cusub aad arkaysa dhamaan Djibouti ka yimaadaan iyaga u dalba iyagaana keenay iyaga waa in la qabsado waa in Djibouti la soo saaro maxkamad caalamiya waayo army embargihii bay jabiyeen ciidamada Somaliland hubka oo dhan Somaliland waxa keena Djibouti baabuurta transportka sameynaysa hubka ay ku dagaalamaayaan artillery ay ku dagaalamayaan wax kasta oo hubeysitaan Djibouti baa keenaysa halkaas dagaal kaga jiraan maaha dadkii ciise dalka lahaa maaha waa reer qabsaday waxaan hubka halka u daldanayo islaam baa dalkan haysata islaam baa qabsatay xamaalat alxadab la yiraahdo ayaa meesha haysata oo halkan hubka geynaysa oo dhaqaalihii geynaysa waxay haystaan support military support political support iyo financial support inta waxay siisaa jabhadda reer Hargeysa ayay siisaa oo dhaqaalihii Djibouti baa halka ku socda Djibouti waa aniga idin sheegay lacagtii biyaha loo ururinaya dibadaha laga ururinaya lacagtii dadka biyo loo siin lahaa iyaguna heesay ku bixinayaan oo cawaale mid la yiraahdo baalkiisita wuxuu sameeyay music buu shadaayo bahal buu sitaaw gelinaya marka afku dhaqdhaqaajiya afka uu dhaqdhaqaajinayo dadka ku hormanayo oo imanaya inaan noo timaado cawaalo iskaga tag meesha inay ka hor joogsadaan mucaaridka Belgiga joog ka hor joogsaday halkan idinku iman halka Faransiiskana iyo idinku iman halka Netherland haduu imanayaan anaga joogna ma iman karo waan ka xeerinana waan eriyayna wuxuu u shaqeeyaa taliska waa basaas u yahay ka soo meedhan ayaa rabnaa inaan iska saarno horgale meel walba uu jooga waa dal baabay Djibouti dal saaqiday weeyaan horumar ma jiro waa dal saaqiday 45 sano sidoo haabu yahay ilaa maanta
gidaafada wadooyinku way baabeen gidaafada dariiqada taala xaarkii baa wadooyinka yaala meel walba waa qashin waxa yaala dhaqaalihii dalkana iyaga ku tumanay ku ciyaaraya reerka qoyska iyo qofkii iyaga ku biira ayaa ku dhargaay imiga gaalkii madowaa waa ka meel buu furtay hotel buu furtay hablaha yar lagu eego isagoo waa gynecologue buu yahay hablaha yar ba habeenka lagu eego ay dadka loo geenayaan bal kaxaysanayo amba gaaladu kaxaysanayaan shanta militariga dalka jooga kaxaysanayaan ayaa lagu eego waa gynecologue kii kale ee dirawalka ahaa halkan London ka ahaa dirawalka safaaradda u shaqeynay ee xamarna mooriyaanka ka ahaa John Sadiq John safiir baa laga dhigay maanta safiir lagu dhawaaqay from driver to the safaarad to the embassy ambassador bal jamka inta la boodaya ka waran waa sidaan weeye Djibouti ciidamadu waa sidaa un laftoodu qaar xidigihii ilaa garbaha suran yihiin qaarna 40 sanadood ayaa askar yihiin oo alif ma helaan meel cadaalad darro dishootay weeyaan laakiin dalkani haddii alla yiraahdo waan ka xoreynayna inaan xoreynana gacanta Soomaaliyeed baan u baahanahay garab Soomaaliyeed baan u baahanahay inaan garab joogsataan oo Soomaali ay garab joogsato oon iska xoreyna cadowga meeshayda haysta dalkayga haysta ee waliba dhibaataynaya ummadda Soomaaliyeed ee laascaanood raba inuu dhiig ka daadiyo hore uu daadiyay dhakhtaradii waa la dumiyay biyihii waa laga gooyay electric meel walba waa la baabiyay laascaanood waxa lagu baabinaya hubka Djibouti ka imanaya weeyaan hubka Djibouti ka imanaya ayaa lagu baabinaya marka wadi garab taaganna ogaada in la idinku soo maqan yahay ogaada dhibaatadana reer Djibouti shaqo kuma leh reer baa haysta waa reer la qabsaday marka laascaanood xoreysaan baad anaga naga xoreynaysaa dalkayga waa la haystaa anagu waxaan ku haynaa ma jirto meel walba iyaga jooga iyaga ka madaxa dhaqaalahayaga qaatay dhaqaalahayaga tuumba ku jirta hargeysa ku socota kabaan ka shaqeeya lacagta waxay hargeysu tagaya kameel ka shaqeeya lacagta waxay hargeysu tagaya tameel ka shaqeeysa lacagta waxay waa daily basis in lacag intee ka xadaan Djibouti hargeysa tagaan oo guriga ka dhistaan waa caadi oo shirkada ka samaystaan caadi cid lama hadlayso inaan diiday oo adoonsiga diiday oo Fuad Ali Yusuf leedana ilaa imika wuxuu diyaarad baa laga soo qaaday Ethiopia iyo diyaarad laga soo qaaday halkan daily base weeye maalin walba way xadayaan Djibouti hargeysiga gabiil ee rabsi ay tagayaan marka annaga inaan xoreyno u baahan taliskani dhiigyacabka ah ee umuladooxa ah ee dhibaateeyay ummadayadii ee dadkii baabiyay ee ciilay ee guriga qabtay ee iyaguna daacaqurun bay u dhimanayaan daacaqurun bay iska daweeyaan iyo faardaac iyo iska daweeyaan caloosha iska xidhaan si ayna kaliya iyo naaso uga soo bixin caloosha ayna uga soo bixin dadka xoolaha bilaadanka cunay xoolaha Djibouti cunay dadka shicibka ah ee reer Djibouti waa dadka dhibaatada iyaga ogol war dhibaatada ogolina qofku mar quruu dhintaa bilaadanka mar un baad dhimanaysa laba jeer lama dhimanayo war iska diida waxa kuma haysataan shaqo ma haysataan lacag ma haysataan guriga ma haysataan kuwa idin la midka way dhargeen oo way fardaacayaan oo daacaqurun bay u dhimanayaan qabiil ahaan baa loo lacagaysanaya oo taajir lagu noqonaya qabiil ahaan